waxaan soo dhaweynaynaa wadamada aan saaxiibka nahay sida muuqata isgarab istaagga inoogu muujiyey madax banaanida dalka Soomaaliya gaar ahaan dawladda Masar go'aankii ku dhawaaqday iyo Eritrea go'aan ku dhawaaqday in ay Masar iyo jaamacadda Carabta inay difaacayaan ciddii ku soo xadgudubta dhulka Soomaaliya badda Soomaaliya qodobka labaad waxa wasaaradda arrimaha dibadda faraynaa in ay la timaado siyaasad cad oo arrimo dibadeed ku wajahan caalamka dhammaantii gaar ahaan wadamada deriska ah waa in ay siyaasadda arrimaha dibadda ay noqotaa mid runtii aad u wanaagsan ayna noqon wax subaxii la soo kaco waxaa xukuumadda u soo jeedinaynaa in la abuuro laba guddi qaran kow guddi madaxda dawladda kala taliya arrimaha siyaasadda ee dawladda oo ka kooban madax iyo diblomaasiyadda madaxdii hore ee dalka iyo ciddii munaasab ku ah sida dagaalka Itoobiya uu noqdo ajendaha qaran qodobka labaad guddi ciidan oo ka kooban saraakiishii hore ee ka qayb gashay dagaaladii Itoobiya in si xoog leh loo abaabulo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan jaalidaha dibadda si loo difaaco dhulka iyo badda Soomaaliyeed qodob kale in aan la aqbalin ergey ama cid dhexdhexaadin nagu samayso ilaa Itoobiya ay ka laabato raaligelin ka bixiso falkii xadgudubka ah ku kacday baaqan waxaa u jeedinaynaa maamul goboleedyada madaxdooda waxaan madaxda dowlad goboleedyada ugu baaqaynaa inay si muuqato u garab istaagaan dowladooda abaabulaan shacabka deegaanada ay maamulaan si Soomaali wada jir ah uga hortagto xadgudubka lagu soo qaaday dhulkeena badda Soomaaliya